barnaamijkeena warbixinta toddobaadkan daawadayaal waxaan ku soo qaadan doonaa darawal bas oo la sheegay in markii dambe uu nasiibkiisa iyo aqoontiisaba uu ku helay inuu noqdo maamulo jaamacadeed sida faahinta warka magaalada Hargeysa inooga soo dirayo Umar Serbiya nin dadaalay cirkana uu gaadha in badan ay sheekooyinka Soomaalida lagu soo daraa mahmaadan waxaana rumeeyay arintaasi mid kamid ah aqoon-yahanada ku nool Hargeysa waxaan booqday jaamacadda Armas oo ku taal Hargeysa waxaan la kulmay nin isagoo hore u ahaan jiray darawallada gaadiidka u kala goosha magaalooyinka dalka Salebaan Meegaag Obsiye waa dhowriyay 30 jir 15 sano noloshiisa kamid waxa uu ku qaatay darawalnimo waxaana waxbarashadiisa hoose hakad gashay waqtigii burburkii dawladda dhexe Soomaaliya waxbarashada 1900 iyo dhowriyay 80kii aan ka bilaabay Hargeysa dugsi la oran jiray Xuseen Giire kadib waxa dhacay dagaaladii bariga Soomaaliya ka dhacay anigoo standard maraya kadib sidiiba ay wadanka laga qaxay aan soo noqodkii maan haleelin markaa maan noqonoday markii wadanku burburkaasi ku yimid nin kasta waxay noqotay inuu lafihiisii uu sarfeef u galo iyadoo inta badan bulshada ka shaqeysa basasku aanay fursad waxbarasho helin taasi oo ka dambaysa shaqadooda oo aan ahayn mid ehel oo ah aqoon ayaa Salebaan sidaasi ka duwanaaday waxa dhacday in aan fursad darawalnimo ka helay jaamacaddan Armas University markii aan darawalnimada helay ayaa waxa ay isbedelay environmentkii aan ku jiray hore basaska ahaa ee birta ahaa iyo environmentkan ama deegaankan aan soo dhaxgalay waxbarasho kadib waxay noqotay waxa la oran jiray hadii ummad aad soo dhax gasho meel lagu ilaayay waana waynaad siin dadta marka waxa weeyaan waxaan isku dayay inaan la qabsado waxbarashadii kala qayb qaato oo aan aad bay hortay igu adkaatay waxa weeyaan nimaan processkiisa hore aan soo waxbarasho soo hagaagsaneyn sidoo jaamacadu ula qabsan karaa baysa shaqadooda oo aan ahayn mid ehel oo ah aqoon ayaa Salebaan sidaasi ka duwanaaday Salebaan muddadii jaamacadda ku jiray waxa uu baalwaday dadaal ah inuu ka soo kabto waxbarashadii dugsiga sare oo iyada nasiib u helin dadaalkiina waxa uu dhaxalsiiyay Salebaan inuu ka mid noqdo ardaydii ugu aqoonta fiicnayd fasalkiisii waxbarasho nasiib wanaagde hadaf waxaan lahaa inaan waxbarto waxaan dadaaliyay step by step graph ayaan sameynay inaan kor u kaco semesterkii afraad markii aan gaar saddexaad markii aan ka baxay sanadkii ugu horeeyay dhamaaday waxaan noqday nin levelkii waxbarashada ardaydii bartankooda ah glass aan ku jiro konton hadee kontonna iga hooseeyaan kontonna ay iga sareen wixii laakiin semesterka ka dambeeyay waxa aan graafkaygii u soo kiciyay xagga ardayda aadka ugu wanaagsan anigoo kuliyada aan markaa dhiganay ay ahayd accounting oo iyadu xisaabaadka iyo maamulka iyo xisaabaadka oo aad ay ugu adag tahay inuu xisaabaadku ku badan yihiin waxa ii suurtageliyay inay iga go'nayd inaan horta wax barto iyo anigoo dadaalayo islaha waxba ma garanay sidee dadka soo gaad qof kastana wax weydiinay 3 sano kadib Mr. Obsiye waxa uu ka qalin jabiyay jaamacaddii waxayna shaqadiisa isku bedeshay sidani deemikana waxaan ahay markii aan taag qalin jabiyay waxa dhacday in aan shaqadii darawalnimo aan ka tagay oo markaa jaamacaddu ay dhiibtay assistant administration ahaa muddo 2 sanadood iyo bara kadib markaan taahana imika la dhiibay inaan noqdo campus coordinator and dean fresh campus Xuseen Cabdilaahi Maxamuud oo ah gudoomiye ku xigeenka jaamacadda Armas waxa uu iga sheekeeyay sida uu Salebaan ugu biiray maamulka jaamacadda maalinta uu qalin jabiyay ayaa Salebaan ugu dambeysay darawal jaamacaddu way ka dajisay waxaana ugu abaal guday inuu noqdo shaqaalaha ka howlgala jaamacadda shaqaalaha hoosaad buu ka soo bilaabay shaqaalaha hadana meel dhaxaad u soo gaaray maantana saraakiisha sare ee jaamacaddu ka mid yahay campus dhan oo jaamacaddu ay leedahay ayuu maamulo ka yahay campus head uu ka yahay isagu uu maamula oo dhammaan shaqada ka socota ee basicska oo dhani isaga ay hoos timaada waxa ugu badan Salebaan dadka uu sheego hadda ayaa dadaal u galaan dhanka aqoonta waxayna taas sababtay inay waxbarasho bilaabaan saddex kamid ah asxaabtiisii hore waxaana mid kamid ah kula kulmay isla jaamacadda Armas anu nafteeda markaan ka hadlo isagu waxaan ka daynay wax weeyaan Salebaan wuxuu ahaa nin halkan ka baxay dhowr sanadood ka hor xagga waxbarashada waxbarashadiisuna aad bay u sareysaa oo fiican tahay wadanka maanta madaxda ka meesha qaybtan haysta maamulka ka marka isaga ku daynayna mar haddayna bahdi waaweyned maartay dhalinyarada maanta ugu roorone dhowrsta jirka marka isaga daabacayna inaan maartay
ku dayano Salebaan ayaa sidoo kale soo qaatay waqtigii isku waday darawalnimada iyo waxbarashada sida ay u arkayeen ardaydii fasalka la ahayd ee iyagu la socday inuu yahay darawal jaamacadda baabuur kaxeeya niyahood marka hore kulley ninka weyn baaban ahaa oo arday yar oo imkii dugsiyada ka soo qalin jabisaan ahaa ayaa jiray nin kale isna aan oranay isku daabadayd baan la dhigan jiray runtii iyaga in exposure ka arki jiray ama waxaan ka arki jiray soo dhaweyn aad u wanaagsan maadaama qofka yar weyn ahaa wanay soo dhaweeyaan runtii galaaskaasina galaad aad u wanaagsan buu ahaa runtii dad igu dheero nimikadana saaxiibnahay organization international ka shaqeeya ayaa jira markii dambana taariikhdayda arkayay iyagoo halkii aan soo dhaweynta aan ku jiray markii dambana aan noqday baa kuwa ugu ixtiraamka badan leh ee galaaska kamid ah marka dadka waxaan leeyahay nimanka aan asxaabta ahayn war waqtigu waa seefe ka faa'iideysta hal saac maalintii hadduu qofku wax barto marka sanadkii la isku geeyo waxay noqonaysaa tiro aad u badan aqoon aad u badanna waad yeelanaysaa tusaalahaan haddaan dib ugu noqdo waqtiyada aan gareedhada aan sidaan usoo socday imtixaanada qaarkood imtixaankii ugu horreeyey halkii laga doonayay 30 waxaan keenay 3 bal waxaad noo sawirtaa Salebaan bal noloshaada iyo taadii hore iyo tii dambe markii dambe jaamacadda soo gashay iyo waxbarashada bilowday bal markii hore basaska iyo dadka basaska ku dhex jirtay shaqada watay noloshayda barigaas waxay ahayd mid aan la soconba sarfeefun ku jirtay inaanad ka noqon sida basasku waxa weeyaan nin raadkiisii ka daba noqonaya waxa weeyaan waxa dunyada ka dhacay iyo waxba toona ma ogid raadkaagaas umad ka daba noqonaysa laakiinse marka aad imika environment kan aan ku jira alxamdulillah waxaan ahay nin aqoon-yahan imika oo kamid ah master tiban imika dhigtaa waan isleeyahay insha Allah waan isleeyahay sanadka ka qabshil dibin doonta hadii la yiraahdo tasiina wadna waan isleeyahay hambigeyguna wali waxa weeyaan Allahumma salli ala Muhammad inaan dadka tuso waxbarashadu horta lacagi aad waxuma sheegto qofka careerkiisa waxba kama bedesho laakiinse markaad aqoon yeelato tu diiniya iyo tu imaadiyaba kalsooni nafeed bay leedahay inay jiraan darawallo badan oo Salebaan asxaabtiisa hore ayaa waxa uu Salebaan iftiimiyay habka ugu fudud oo isleeyahay waxay ku heli karaan aqoon waxbarasho runtii markaan arko hay'adaha ama organizationada soo dhajinaya darawalnimo bishiina intaasoo $100 qaadanaya shuruudooda kaliya waa hal saac uu galo private oo uu communicationka qofkan darawalka uu haade halka ku tagayo halka la geynayo uu xiriir ku hagaajin karo dhammaan imika ilaa horta 4 waan garanayaa waxbarasho ku dhiirigeliyay oo hadda dhigtay imika Salebaan oo aan weli guursan ayaa ka sokow isbedelka ku yimid noloshiisa waxaa sidoo kale isbedelkaasi la qaba qoyska uu ka soo jeedo waxa wala loo jirtaa waxa weeyaan kulley level hoosan markaa hore ahaa imika laakiin income ahaan iyo muxuu ahaa waxbarasho ahaanba kullaba la isku dhigi kara maaha aad baan alxamdulillahi rabbil caalamiin ilaahay u leeyahay cid kastoo soo gacan qabatay waqtiga aan waxbarashada ku soo jirayna aad baan ugu hanweynahay imika xitaa lecturer baan ahay macallin oo assistant professor baan ahay assistant professor baan waliyahay maan gaadhin professor runtii laakiin waxaan jecelahay semesterkan imika soo socda inaan professor jaamacadda wax ka dhigay isaguna aan noqdo tanaan waliba joogo hadii la yiraahdo oo ballanqaadkay uu yahay semesterka dambe qaadan doono markii aan qualified noqdo inaan laba sanad iyo badbaan assistant u ahaa professor jaamacadda runtii hadda waxaan leeyahay income-kaaga iyo aqligaaga iyo naftaaduba way hagaagaysaa waayo noloshaadii dhammaydaaba hagaagaysaa saad u nooshahay baa hagaagaysaa saad dadka ula dhaqmaysaa hagaagaysaa waa environment aad u kala duwan waxa weeyaan kaan soo dhex jiray mid balwad sigaar iyo qaad ay waxaa ku dhex jiray buu ahaa waxa weeyaan iminka markaan ka soo galay aniguna aan la qabsaday waxaan noqday qof isagu dadkii doonaya hal hadaf wanaagsan lamidun baan ahaa nimanka aan asxaabta ahayn wax kastoo ay gacanta ku hayaan anna waan ku hayay Salebaan Migaag Obsiye oo sanadkan dhamaysan doona shahaadada master ayaa waxa hankiisa ku jirtay inuu noqdo siyaasi wax ka qabta dhanka waxbarashada hadafka aan doonayay inaan gaaro horta waxa weeyaan waxbarasho tayo leh wadanka in uu helo oo ardayga matalan imika dugsi sare soo dhigan dugsi ilaa 12 sanadood ku soo jiray maanta hadii aanay reerkoodu kareen in jaamacad ka bixiyaan waxa weeyaan inuu badda isku tuuro ardaygaas inuu waxbarasho ay dawladdu qaadato responsibilities oo uu helo waxbarasho tayo leh
hamigaygu lambar 1 waa ka ardayga dugsiga markuu ka soo qalin jabiyo inuu helo jaamacadaha caalamka la dhigta oo wadankiisa oo aan lacag hayn oo si wanaagsan dadku la warbixintii toddobaadka aynu ku soo qaadanay toddobaadkan Saleebaan ayaynu intaas ku soo koobaynaa intana warbixintan lamida ku kulmi doono Cumar Serbiya Somali Channel Hargeysa